وحكمد قراءة القرآن بالتدبر قرآن كإلهي مركين أخرينه إن أمر رمضانها تام غير رمضانه إن أينو بالتدبر كأخرين التدبر كحويان لغشو إن إسدجيسنيسو إلهي أو كلها الضيانة أدمرك قاعدة أرنت وأنا حولين مركز القرآن كأخريسو وأنا إسكحولني لكن وأنا سوتشيدو وأنا هذا الكاغا مغليسو وأنا سؤاله إلهي كويدين إياك جوابي كريسو درين كاقبط مركا قرآن كسيد الله أخريا كلا دوان قفوحو كحسابتما إنت تشسو دمينيو إيا إنت حاشيودو دمينيو قفنو دمينيا ومعانسانيا سيدو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلهي باوحو تلمامي قرآن كود دقيستاه إن إيمانك كردينيس وإذا تليت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ضدك المؤمنين تاي وحوى يكون مركا لغود الأخرياء قرآن كإله إيمان يكرديان آياته على آياتي بودقيستي iskamu dhaafin laakiin dhageysigaas wuxuu keenayaa macaans waxa uu keenayaa khushuuc wuxuu keenayaa markaa iimaanka inuu kordho waana taynu soconno waxyaabaha iimaankeena kordhinaya waxa kamida macrifatu asmaa illaahi alxusna wa sifaati wa cibaadatuhu bitilka almacrifa inaynu casharo gaara ku qaadano oo aynu baranno magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay oo aynu ku barino oo aynu ku cibaadaysano arintaasina aad bay muhiim tahay waxyaabaha ilaahay ku barayo wey waxyaabaha iimaanka kordhinaya wey nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy ina lilaahi 99 asma man axsaaha dakhala aljanna ilaahay 99 magac buu leeyahay 99 ka magac qofka xafidaa ee dusha ka qaybaa jannadu galaya marka waa inaad macnahooda garanaysa ismi baa laga yaabaa ama hal magac inuu intaasoo macno leeyahay macno waliba wuxuu ku kordhinayaa macrifa iyo aqoon inaad ilaahay barato subxaanahu wa tacaala waxaa kamida waxyaabaha inoo kordhinaya iimaanka ta'amulu siirati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam siiratu الsalafi الصaalix inaynu siirada nebiga akhrino oo siiradu noloshay kuu cusboonaysiisaa qiiro iyo jibbe iyo jacaylna way kugu abuurtaa iyo jahayn ku dayashana waad ka heshaa rasuulkaaga aad ku dayato oo noloshu kama maaranto tusaale kama maaranto marka cidda tusaalaha inoo hayna waa nebiga iyo jiilkii ama qarnigii uu gacmihiisa ku rabeeyey dadku had iyo jeer waxay jecel yihiin inay wararka dhegaystaan oo taariikhda akhriyaan oo noofallada iyo sheekooyinka akhriyaan laakiin innaga cibro iyo cashar intaba waxay noogu filan tusaalihii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii markaa siirada nebiga in la akhriyo oo dhallinyarada la baro aad bay muhiim u tahay waxyaabaha iimaanka kordhiyey ka mid waxaa laga yaabaa inaad hore u kacdo oo aada la noolaato oo aad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u heshanayso oo halkuu farxay aad farxayso halkuu naxay aad naxayso wixii uu markaa rabay uu aad ugu hanweynaa adiguna aad u hanweynta qadiyadda siiradu waxa weeye weliba da'yartiya dhallinyarada halka ummado kale lagu xidhayo ama ummado kale wararkooda loo akhriyayo ama qisooyin ay jecel yihiin looga warramayo siiradu waxyaabaha iimaanka kubciya ummadahana lagu tababaro ayay ka mid tahay waxa aynu ogsoonahay qur-aanka kariimka ah taariikhdu aad uga warramaa intee ummadood baa qisadooda qur-aanku aad uga warramaya taa macnaheedu waa maxay waxa looga warramayaa maaha wax sahlan waxa looga warramayaa in nolosha lagu saxo oo lagu toosiyo iimaano laga kororsado waxaa kamida waxyaabaha aynu iimaankeena ku kobcinayna التأمل في آيات الله الكونية iimaanka waxyaabo inoo kordhinaya waxaa kamida sidan aynu qur-aanka u akhriyayno kitaabka qur-aanka ah
inaynu akhrino kitaabka kownka waxaynu uga jeednaa caalamkan aynu ku abuuranay cirkiisa dhulkiisa badihiisa buurihiisa biyihiisa bannaanka dadka xayawaanka alla waxaasoo makhluuqa warshadee soo saarta warshaddii ilaahay subxaana wa tacaala maxaa cibro iyo cashara ku jira waxaa la yidhaahdaa alcibaadatu saabita baa la yidhahda waa cibaadada aamusan tafakurka fikirka aad ka fikirayso ee caalamka aad saa u eegayso intood bannaanka u baxdo dee waa miduu nebigu tusaale inoogu ahaa sala allahu calayhi wasalam ina fii khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli waاnnahaar laaayaati liuli lalbaab aayadaha markuu nebigu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam habeenkii ku cibaadaysanayo haddana caalamkaasuu eegayaa iyo xidigaha iyo dayaxa iyo ayuu eegaya marka arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay silsiladaasi halkaasay inooga sii socon doontaa qadarkaa yaro kooban ayaynu wakhtigan imika ka qaadanaynaa ilaahay nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu